galaadi magaalo 2 sano ka hor wixii caado u ahaa uu hadda ceeb ka yahay isbeddelkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu noqday mid miyi iyo magaalo meel walba oo deegaanka ka mid ah wada gaaray oo haddana lagu wada najaxay degmadan qadiimiga ah ee doola ka tirsan kuna tala xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya siiba gobolka Mudug ee Puntland ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay ahayd mid wehel la noqotay horumar la'aan dhan walba leh balse mar aan socdaal ku tagay asbuucan waxaan ku arkay wax ka duwan wixii ay ahaan jirtay inkastoo isbeddel weyn oo dhan walba leh xorriyaduba ha ugu weynaatay uu degmadan ka jiro haddana waxaan warbixintaani ku eegi doonaa xagga ganacsiga qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee degmada ayaan booqday kadibna ganacsatada ayaan wax ka weydiiyay bal in ay iiga warbixiyaan xaalka ganacsigooda iyo farqiga u dhaxeeya hadda oo isbeddel dhacay iyo xilligii xukuumadda Cabdi Maxamuud Cumar waa tiri Ismaaciil Sheekh Cali waxaan deganahay gobolka Doolo degmada Galaadi ganacsigayga aad buu u wanaagsan yahay ilaahay mahad ka gaadhe waxa weeye hadda waqtiyadan hadda xilligii hore iyo xilligan isku mid ma aha xilligii hore waxa weeye ganacsigu waa la ceyrsan jiray oo gaariyaashu ma soo gali jirin oo hawlo badan iyo dhibaatooyin badan baa iska jiray oo hadda ka hor xataa aniga in badan baa layga dhacay alaab iyo maxay ahayto iyo lacagba waxa weeye hadda alla mahad ka gaadhay intii isbeddelka waxa weeye waxaan helnay ganacsi xor ah iyo waxa weeye gaadiidkii noo soo galayo xor ah wax dhibaatana kama jirto ganacsigayaga marka hore waan salaamayaa bahal saxaafadda waa Cabdinasiib Ciid Cigaal waa maareeyaha najax Galaadi xarunta Galaadi haddaan idin ka warramo macnaha isbeddelka jira ama hadda sida xaaladdu tahay waxa jiray in raashinka laga cuno degmada Galaadi iyo nawaaxigeeda uu ku soo galo tahriib ama wax la yiraahdo dhoomasho lagu soo galiyo xilligii maamuladan ka horeeyay alxamdulillah wa kafa ilaahay baa mahad iska leh hadda waxa dhacda raashinku soo uga soo guuro Cumaan inuu yimaado Galaadi asaga oo raqiis ah dadka loogu dhimrinayo qof walba awoodiisa uu gadanayo arintaas waxaan u aragnaa horumar iyo masri u soo siyaaday wadankan iyo deegaankan aynu joogno waxaan ugu mahadinaynaa marka koowaad Ilaaha subxaanahu wa ta'ala sida noo suura galiyay waxaan kale ku mahadinaynaa isbeddelka ka dhacay giyigeena waa laga faa'iideystay raashinka raqiiska halkan yaala ashcaarta kala sidii loo baahdo sida dhismaha sida gaadiidka sida isu socodka dadka sida waxyaalaha kale halka aanu helay waxa weeye qofkii macnaha u baahan qaraabadiisa dibadda iyo meel shay doonta jidha inuu ka qaato lacag biil ah ama ay u soo diraan tasiilaad waxa loo helaa si fudud oo waa helaan dadku macnaha adeegyadooda nooc walba waxa wali hadda macnaha hadda aan loo kala ahaan noo soo gelin oo hadda macnaha ayagoo loo kala noo iman sida hadda caafimaadka oo kale waxbarashooyin loo kala oo macnaha dadku inay ka faa'iideystaan baa bulshada gidigeed ugu baaqaynaa ganacsiga iyo hadda nolosha asaasiga ah hadda ma sha Allah aad bay noogu saxan tahay oo sida hadda raashinkii dharkii ashcaartii kale gaadiidka oo qofku nooc doono uu la imaanayo oo uu wato kiira iyo kii weyna ma sha Allah aad bay u fiican yihiin waana wax kililkayaga iyo macnaha dawladda giiga Itoobiya oo macnaha wax hadda ka socda weeye annaguna waa ka faa'iideysanaynaa si fiican baan uga faa'iideysanaynaa wixii naga dhimanna insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano waxaan ku baaqi lahaa ganacsiga hadda wuxuu noqday wax mublaq ah oo qof walba tabartiisa uu ka faa'iideysanayo wuxuu u baahan yahay uu la imaanayo in inta laga sii laba jeer jibaaro sharciyadiisa la fududeeyo oo hadda adduunku nidaam iyo sharci kama maarmo inay wax ku socdaan sharciyadii ganacsiga in la fududeeyo sharciyadii waxbarashada in la fududeeyo oo dadkii macnaha waxbarasho loo kala oo dadkii macnaha sida bareefadiyada sida macaahidda oo kale loo keeno si ay aqoontii dadku ay u soo dhisanto caafimaadkii oo kale cidii ka faa'iideysan karta in laga faa'iideysto ganacsiga hadda waxaan kale oo la sameeyaa macnaha hadda marka halkaan oo kale dadku raashinka laga gado oo lacagtii la helo waxa lagu bedelaa xoolihii waa la dhoofiyaa si ay ugu yimaadaan macnaha ay baalka kan leeyahay ay u timaado ashcaartii ay u soo fududaato danahaas oo dhan sirfisidaas oo dhan baa hadda ka socda ما شاء الله سداس الله اسبدل في عن بالها له horumar laho kul aho nabadgelyo laho waxaan ku iraadayaa wixii kontrabank iyo wixii dhibta badnaa waxaas ilaahay hadda waana dhaafiyay alxamdulillah waana shaqaysnaa waa aad baan u fiicanta xaaladayada alxamdulillah
alaabtu waxay nooga timaadaa meelo badan oo kala gedisan Soomaaliya waxa u badnaatay gaadiidka magaaladana waa soo galaa ku canshuuran iyo ku canshuuraynba aad bay xaaladda magaalada u fiican tahay ganacsigeeduna u fiican yahay alxamdulillaah waa wixii deed qofku haysto qof aan waxaysan baad wuxuu gataba haysan qofkii uu haystaa waa laga gataa alxamdulillaah waan iska suuqeed waa iska fiican yahay maalmeedkayguna waa fiican yahay alxamdulillaah aad baan u fiican niyadii hore oo dib curashada wadanka haysatay iyo xilligan hadda Soomaha waa wax si dhow maaha waa kaafiye kala dheeri xilligan bay aad u fiican tahay hadday ganacsi tahay hadday si walba ay tahay aad u fiican markaan inooga fiican tahay markii hore dib curashada inkastoo sida ay ganacsatadu sheegtay wax weyn iska bedeleen ganacsiga magaaladan haddana waxa magaalada ka banaan fursado aad u badan oo ganacsi iyo maalgashi laga samayn karo Shuka Aadan Guray bartamaha TV Galaadi